magaalada Hargeysa habeennimadii xalay waxaa lagu soo bandhigay barnaamij si faahfaahsan uga hadlaya maalgashi lagu sameyn doono warshada daqiiqda soo saarta warshadaas oo lagu magacaabo Boundary Mills soona saari doonto daqiiqda iyo sidoo kale calafka xoolaha warshadaas oo asaaskeeda ay leeyihiin aqoon-yahano reer Somaliland oo kala ah Cusmaan Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo fadhigood yahay wadanka Canada habeennimadii xalay waxaa madashaasi ka qayb galay aqoon-yahano dhalinyaro haween iyo marti sharaf kala duwan iyo mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha warshadaha gudoomiyaha jaamacadda Francis Fanon Dr. Bulxan iyo mas'uuliyiin kala duwan ka ule faa'iidan badanna u yeelan kara wixii ku soo darsama ee wax ku darsama waa maxay faa'iido u tahay wadankan macaashka yar ee lagu helaa maaha muhiimad weyn marka la qiyaasayo wadan halkuu gaadhay wax per capita income la yiraahdo lagu qiyaasaa waa al-fard shakhsi per capita income ka 196 wadan ee adduunka ah saddex un baa inaga hooseeya waa Burundi, Congo iyo Malawi saddexduna cuntadooda ay beertaan على الأقل cuntadooda ay beertaan talabaad waxa weeye wax soo saaristii oo yar oo waxay ku tiirsanahay beero iyo xoolo ay ahaayeen labadiina si yaraanaya wax replace gareeyo meesheedii galana aan joogin muhiimadda industry weeyay waa halka haddii aynu doonayno inaynu wadanka hore u marino waa in la galaa talaabada dambe oo industry sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdilqaadir Imaan Warsame Dr. Bulxan iyo mas'uuliyiin kale kuwaas oo dhamaantood bogaadiyay warshadani soo saari doonta mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan cunooyinka asaasiga diaspora dadkii laga tagay kulli faa'iidada keenayaan tan iyo in kan badan bay keenayeen wiil filaynay waana soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo horumar inay yimaadaan oo wadankii maalka shadaan laakiin aad iyo aad baan ugu farxay muddo badan bay qaadatay in fikradaasi lala yimaado taa imika Boundary Mills ee cuntada lagaga hadlayo waa taa muhiimka ah Boundary Mills waa shirkad dhaqdhaqaaq ah imika lagu soo celinayo wax aad u muhiim ah dhaqaalaha Somaliland markay noqoto maciishada nolol maalmeedka sida daqiiqda iyo baadka xoolaha imika suuqeena waxa haysta wadanka Cumaan iyo daqiiqda keena oo saxara ah iyo wadanka Masar marka labada wadan baa suuqeena haysta oo marka Somaliland iyo Soomaaliya la isku daro waa 360 milyan oo dollar anagoo taa ummadda uga faa'iideynayna iyaanu saamidah furan iyo fursad maalgashi ugu soo bandhigaynaa 7 wadan oo Somaliland koow ka tahay shirkadda Canada lagu soo sameeyay halkana waa laga sharciyeeyay si dhaqso ah aanu u gallo dhaqaalaha Somaliland laba lugood ku jooga labada lugood waxa weeyaan waa xoolaha iyo lacagta dibadda laga soo diro iyo diaspora lagu soo diro xoolo badan baa Ethiopia nooga yimaada xoolahaasi imika Ethiopia waxay ku fikiraysaa inay meel lagu qalo hilibkooda diyaaradaha caalamiga adduunka meel walba taga ay saaraan taasi macnaheedu waxa weeyaan waxa yaraanaya xoolihii inaga soo gali jiray laf dhabarka wadanka high hard currency aynu soo galin jirnay wadanka xaggan qurbo joog hadaynu tagno dadkii halkan ka tagay lacagta soo dirayay waa dadkii xasuusta ku lahaa halkan aabahoodii iyo hooyadoodii iyo dadkii ka tagay iyo lacagta soo dira dadkii 25 sano iyo halkan ku maqnaayeen qaarkood shaqadii bay ka fadhiisanayaan qaarkood da'ba haysa jeebkoogii bay raaday lacagtaasi sidii hore uma soo baxayso caruurtoodiina dad xasuusanaya eedo xaaliyo lagu leeyahay lacag u diro kala manooda waxaan sawaa ayo ma garanaysaa marka labada lugoodba way si daciifayaan marka sida kaliya looga bixi karaa waa tiyo mashruuc caynkan oo kala ah la sameeyo runtii ganacsadaha wadankuna uu ku feel garoobay oo uu ku dhacay waa 25 sano ugu dambeeyay qasaacad ama karatoon bay soo gurayeen tani waa tad ummadda ka dhaxaysa ala saamiga 2500 oo kale aanu ka dhignay si qof walba uga soo qayb qaadan karo warshada waxa uu qoondaysan saaxil ama berbera warshadani waxay soo saaraysaa 4 qaybood marka loo qaybiyo suuqa Somaliland daqiiqda lagu iibiyo qayb ahaan waa 48 oo tan weeyaan adduunka gebigiisa 12 wadan baa qabadin ku filan leh oo wax ku sameystaan inta kalena 12 kaas ma ka iibsadaan anagu kuwaasan ku iibsanaa marka hore laakiin muddo 4 sano gudaheeda waxaanu ku tala jirnaa in beeralayda aanu maalgelino oo iyagu soo saaraan oo demand aanu u sameeyno agri business ay naga iibin karaan iyo de shaqaalihii beeralayda oo run ahaantii sare u kacaysa marka mashruucyada caynkan oo kale hay'ado looma daba fadhiisto adduunka cid kale oo inoo soo socota
oo waxay noo qabanaysaa ma jirto wadan walba dadkiisa maalgeliya waxaan jecelahay Borderi Mills meel kasta in lagaga daydo mashruuc caynkana ay keenaan warshadani Borderi Mills ayaa waxay noqonaysaa midii ugu horeysay ee nooceeda ah ee dadka si ballaaran loogu soo bandhigo inay ka qayb galaan saamiyada warshadaasi oo qofka ugu yar loo ogol yahay lacag gaaraysa $2,500 inuu ku darsado warshadaasi waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in wax wada yeelashadu ay muhiim u tahay maalgashiga gudaha Cabdishakuur Dayib Maxamed Hon Cable TV Hargeysa